وصي وحياة ودنك كسعودة وكسودو جالوس. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. محمد درسي شباب غادر دمانتي يرجع حفلتنا سوق وقابلين وسلامتي. سلام كدب كل يعني بوليتيشن بانا هاي وماشي السياسة اللي قلنا هاي جارت تبى الأمور ردي إنكسر ردي فرحت وين هاي waxaan kaliya idin ka warrami karaa siyaasadda yahay laakiin haddaan wax yar idinka warramo dhulkii anu hadda 20 casho meelahaas baan ka sokeyey meesha la yiraahdo Boosaaso runtii arrimaha hadda meesha lagu hayo oo aad hadda soo abaabusheen oo runtii arrin qiimo badan ah waxaan u malaynayaa dhulkeena ama deegaankaas bari ama dhulkaas Puntland ama deegaanada qandala iyo degmooyinka lamidka aad bay ugu yaraan dhinaca horumarku barnaamijkan hadda meesha lagu hayo Noor Foundation waxaan u malaynayaa 2008 bay xilligii la aasaasay Dubai runtii wuxuu ku bilowday si yar oo maaragtay qariib ah maantana heerka aad la socotaan buu marayaa ilaa uu soo gaaray Yurub oo aad maanta halka ku haysaan waana wax farxad weyn runtii rag dhalinyaro baa u kacay oo ganacsato iyo dhalinyaro maaragtay imaaraadka iyo meelaha ka shaqeysa iskuulkii qandala iyo hirgelintiisii iyo hadda maanta ilaa 250 arday baan u malaynayaa inay dhigtaan waddanka baahiyaha ka jira dhinaca waxbarashada caafimaadka wadooyinka biyaha aduu meelahaas ay u badan yihiin walaalkii hadda sharmaarke barnaamijku hadda ka sheekeynayay runtii dhibaatooyinka ugu badan oo dalka ka jira wey waddankeena ma aqaan waxaan u malaynayaa sanadihii ugu dambeeyay burburka badihii sun iyo waxbaa lagu aasaal leeyahay dadka dhalanaya curyaamiinta iyo dadka maaragtay runtii xataa dhinaca dhimirka waxyaabo badan baa dalka kusoo kordhay oo runtii la yaab leh oo aan dalku lahaan jirin waxaana loo badinayaa waxyaabaha sunta dalka lagu aasayo inay keeneen waana barnaamij qiimo badan hadda sharmaarka barnaamij ka sheekeynayay dalkuna aad buu ugu baahan yahay mana haystaan dalku daryeel caafimaad oo waxyaabaha runtii aadka u liita marka laga sheekeeyo hadda Boosaaso ugu ron garow markaa tagto meesha loo soo aado waa Boosaaso gaalkacyo baa iyaduna ku soo xoogaa ron isbitaallo bareefada waa laga furay gaalkacyo iyo garowe laakiin qiimo weyn ma leh mar haddaan dhakhaatiirtii waaweyneed ee dalka ka wada carareen inta ugu roon waxay joogaan xilliga qaboobaha qaybtooda waxay aadaan Hargeysa iyo dhulkaas maaragtay iska qabow dalku male yani dadkii aqoonta lahaa oo dhakhaatiirta ahaana dibadday uga baxeen oo amnigii baa iska xumaaday runtii marka barnaamijkan oo barnaamij qiimo weyn aad baan idinku hambaliyeynayaa lacagta hadda meesha laga sanqarinayo oo $30,000 waxaan islahaa dee reer UK يعني ساعات بيكون بحين كرين كل دور بقول قفطان ماشي كم ملايين إن إلى كم قفطات كارية إلى جاليدا ماشي جوجا ما أنت أنا ماشي ضدك كم موضة وضد هذا التريار نتي واحد من ملايين يا كل إلى يمن دونا اللي يذكوا هبون إلى بلو يمكن ملايين يا فإذا عرفت كورسي هذا اللي يصير قرينا هي إن شاء الله كل هذا خير كاس وحنا ملايين إنه يدين بلو سلم يكون بلو يدين هاتو عادي عاد بقول ما هتنتين كل وزارك دونا حلي كدوان حياة بدنا وسكور يسون دونا والله أنا عاد يبقى قيس وما هتنتين ما شاء الله وسيرة كنعسي قلتلان أبوان يوسف أدبو ما سيهاي طبعا ما أنت واحد يسوقني مكلية ما أحين waxay ahaydina iskuulka baldin ka geysano taageero laakiin waxyaabo badan baa jira wadanku u baahan si sharmaarka sheegay caafimaad ceelan in la qodo wadooyin wadanka loo sameeyo xarumo ogoomeed in loo qodo marka loo dhiso marka waxa weeye arintu ma yara waxaan kaloo in xasuusinaya bankiga waa kaas fooman baa yaal oo qofkii u baahan uu qaadan karaa oo ku qoraysan magaciisa iyo waana inay qaybinaynaa daqiiqad kadib laakiin sida dhaqankeenu ahaa waxay noo soo khatimaya intaan wadaadada ducayn
nabadoon maxamuud bootaan oo kelmad yar siinaynaa 2 daqiiqo raalin ahaad. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي باكين سوكاني الكين سوكاني aad bay u mahadsan yihiin dadka ka soo qayb galay shirkan iyo qad cidi soo abaabushay aad bay u mahadsan yihiin. anigu hadda wax yar baan joogay dalka wali calistaan intan leego isu yimi ma aanan arkin markaan ugu badnayn mar baan wax ka qayb galay meel 15 meelahan isugu nimid maanta waxa isu yimi waxa weeye dhalinyaradii iyo dumarkii magaaladan waxa balaynayaa waxaan arkay rag badan oo mutacallimiin hore ahaa rag badan oo siyaa dawladii hore u soo shaqeyn jiray rag badan oo ganacsato ahaan jiray oo kulli jooga magaaladan oo maanta shirkaan ka soo qayb galay waxa weeye marka dhalinyarada dii adduunkii adigu burbur ka dhacay oo isbedel dhacay meel kasta qabiilkii deganaa ama qabiilooyinkii dalkoodii waxbay u qabteen abaabul bay sameeyeen wax kastaba ha ahaatee waxbay qabteen innagu calisna haddaynu waa burburina meesha dhulkeenu deganay aynu soo burburinayna waxaynu soo aadnay dhul kale inkastaynu hadda magaalo dhisanay oo magaaladaasi magaceedu aad u dheeryahay xarma la yidhaahdo oo taasi qiimo badan bay hadda calistaanka ugu fadhidaa laakiin dhulkii kale ayaan waxba laga qaban qabaa'ilada kale oo dalka nala degan magaalooyinkooda markaad aad u eregto ama dhisma ha ahaato ama horumarin ha ahaato gar kastaba waxbarasho horumarinta xagga biyaha xagga caafimaadka wax badan bay qabteen laakiin inagu gadaal ma ayna noqon waxaan aad u soo dhaweynayaa qolada hadda ragga ku dhaqaaqay in bal gadaal loo noqdo oo magaalooyinkii hore la xusuusto waa arrin aad u qiimo badan annagu soo dhaweynayaa waxaan aad ugu hambaliyeynayaa dadka soo abaabulay ama horey u abaabulay ama haddaba abaabulka ugu jira oo ay wadaadadu ka mid yihiin hadda wadaadadu hadday inoo iman maantay lacagtaan ma aynaan ururinayn khayr allah siiyo marka waxaa ka daawanaya university wadaadadu markii masaajidda lacagta loo ururinayo dumarku lacagta saasaa loo shubayaa martan wadaadadu markay matal duceeyaan waa wax matal aad qofka qalbiga isbedelaya marka aad bay u mahadsan yihiin waxaan aad ugu soo dhaweynayaa oo leeyahay aynu arrintan hore u dhaqaajino haddaynu magaca nahay sida hadday wadaadadu u sheegeen dadku Soomaali muslimku waa isku walaal weeye laakiin qabaa'il waxa ah intii hadda markaas isku meel wada degan qabaa'iladu waa saas badal hadda wadaadado kale waxa laga yaabaa inay hadda goor hore mar hore qandalo ugu dambeysay dhulka laakiin deegaan ahaantii hore ayaa lagu xisaabtamaya saas oo kale waxa loo baahan yahay inaynu dalkeeni waxaa jira hadda dad kun isku qoraya waligood qandala iyo bari aan tegin qadra bilxawa kale ka soo qaad qandala iyo bari ma yarkiin aad hatta bitig waa markan waxa taa keenaya waxa weeye dhalashada dadkii markuu wada dhasho meel isugu yimaado waxbuu maaragtay ficil waa imanaya aad baan u soo dhaweynayaa anigu arrintaas waxaan leenahay shirkan shirka ku xiga waa inaynu casunnaa rag badan oo magaalada jooga faaraxday waa u sheegayay rag badan oo magaalada jooga oo ama shaqeeya ama odayaal ah ama siyaasadda wax hore uga soo maray ragga in la casumaa loo baahan yahay maanta waxa soo ajiibay dhalinyarada weeye iyo dumarkii wax odayaal manaaba jooga maanta inta hadda wadaadada maahe halkan أنا marka insha Allah intaas ku soo gabagabeynaya waxaan anigu leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin dhalinyarada iyo dumarka aad u mahadsanyiin anigu ficilka dumarka aad baan matala markaan suuqa aan joogo dumarka calisaanku waa ficil badan yihiin meelaha qaybta isugu tagaan ragga ka ficil badan yihiin sheekooyinkan maqbaqlay ama meelaha isu tageen aad bay u mahadsan yihiin dhalinyarada sidaas oo kale odayaashii baa inoo haray odayaashina wayna gadaal ugu noqonnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adeer aad buu mahadsan yahay dabcan waxa weeye wuxuu yiri waxa ka soo qayb gal dhalinyarada iyo dumarka horta lacagta waxa bixiyay wadamada Yurubta dumarka ugu badan marka inay dumarku ugu bataan dad ka soo qayb gala wax la filayay dhalinyaraduna waxa weeye odayaashii